إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa maanta waqtigan maqribka ah inaan tacsiyo u diro geeridii ka dhacday oo ku dhacday walaalkeen odaygii qaalka ahay Xaaji Rashiid Macow oo ku dhacday magaalada Raamo oo dilkaas ay u soo baxeed nin qori wata ayaa ku sameeyey asagoo dhex socda magaalada Raamo eestribka hore waa Raamo. markuu horeysa waxaan leeyahay walaalkeen odageeni oo qaalka ahay Jannatul Firdaws ilaahay ka waraabiyo tolkiisana oo macaanay ayagana sabar imaan Allah ka siiyo. geeridaas waa geeri aad iyo aad u xanuun badan oo odaygaas ku dhacday lamana filaynin. insha Allah biidhnillaahi kariim waxaan rabaa inaan u baaqa tolkii qaraabadii oo ninka odayga ka dhashay beeshii abkay Murulo inkastoo annaga kulligayna odaygan yahay laakiin waxaan rabaa si gees ahaan ayagana aan u tacsiyeeyo aan ku dhahaa insha Allah biidhnillaahi kariim arrintan way dhacday waa fool xun tahay aad iyo aad baa ina xanuunsay. waxaan leenahay sabar imaan Allah naga siiyo. waxaan rabaa baaqan inaan u diro tolkii oo degnay reer Raamo in ayagana sabar ay muujiyaan oo wax kalaba ay dhicin oo lis xakameeyo. waxaa kaloo baaq u dirayaa dowladda security-ga wali waxaan ku dhiirigelinayaa si degdeg ah in ninka la sheegay oo dilkaas u sabab ahay odaygeena inay soo qabtaan ay shaqadaasna ay howlgalaan. odayaashii meesha joogo oo Raamo ayagana inay gacan ku siiyaan ciidamada security meesha joogto sida shaqadaas ay ku qaban lahaayeen. insha Allah biidhnillaahi kariim annaga iyo madaxda ka kulliba waan isla wajirnaa waa isla wada hadalnay arrintan waa ka hadalnay gacanta baan ku qaban doonaa biidhnillaahi kariim. insha Allah annagana waxaan leenahay sabar imaan Allah naga siiya. tolkina saas baan ugu tacsiyeynaynaa madaxdana waa la wada hadalnay waan isla wada jirnaa. intaas iyo nabadi khayr. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.